waxaan maanta u fadhinaa halkan oo nuu dabaaldegaynay sharaf weyn oo ah in nagala soo qayb galo mas'uuliyiin badan oo kala duwan nagala soo qayb galaan munaasabadda 28 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan qaybta gobolka Sanaag ee Gaabo sharaf bay noo tahay runtii sharaf bay noo tahay farxad baanay noo tahay maanta inaan nabad qab ugu dabaaldegayno munaasabadii dhalashadayda aad iyo aad baan arrintaa ku faraxsanahay barnaamijkeegu wuxuu noqon doonaa kulley waxaanu ka warrami doonaa ciidanka booliiska ee gobolka waxqabadkiisii xaaladda guud ee nabadgelyo waxqabadkii booliiska wixii fulay wixii qabsoomay kolle hawluma dhammaato horumar marka loo socdo hawluma dhammaato hir markaad gaadhaba hir kalaa kuu sii muuqanaya maalinba meel bay taagan tahay marxalado kala duwan baa la soo maray alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan baa laga soo gudbay oo dhibaatooyina taasoo ay sababtay xasiloonida iyo nabadgelyada iyo sharafta iyo quruxda maanta aynu halkan ku fadhinayno ku naaloonayno ay ku salaysan tahay waxqabadka ciidanka booliiska iyo bulshada ku nool Ceerigaabo oo iska kaashaday siday u sugi lahaayeen nabadgelyadooda xasiloonidooda iyo amnigooda siday u sugi lahaayeen wax badan baa loo soo maray runtii maanta waxaanu taaganahay alxamdulilah rabbilcaalamiin taa aynu sida fiican quruxda badan leh u fadhino nabadgelya qurux leh sharaf leh haybad leh intii ka soo hawlgashay ku tacabtay barasaabka gobolka ciidamada kala duwan maayarka dhammaan runtii waa arrin laga qayb qaatay xasilinta iyo nabadgelyada gobolka mayqaan wanaagsan baan imaan taagan tahay barnaamijkeegu markaa wuxuu la xiriiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxqabadka ciidanka booliiska gaar ahaan xagga magarasa dunuubta dhacday ama kiisaska xiisaha gaarka leh ee mudnaanta gaarka leh ayaanu iyagana ka warrami doonaa waxaa kaloo fursad siin doonaa mas'uuliyiinta kala duwan ka soo qayb galay xafladda ayaanu iyagana siin doonaa kulli fursadooda walba soo kelmadda kaga beegan